kulan sports oo saaxiibtinimo loo goleeyay isdhaxgalka bulshooyinka Soomaalida iyo South Africaanka ayaa shalay waxa uu dhexmaray ganacsatada Soomaaliyeed iyo saraakiisha booliska magaalada Cape Town kaasi oo lagu muujinayay saaxiibtinimada labada bulsho in boolisku diyaar u yahay sugidda ammaanka ganacsatada Soomaaliyeed ee ku sugan dalkan South Africa. Haddaba kulankan oo mid saaxiibtinimo ayaa waxay guusho raacday kooxda Banaadir Stars kuwaas oo soo bandhigay ciyaar wanaag iyo bulshooyinka daawanayeen ay ku qanceen kubadda ay soo bandhigayeen. intii ay socotay ciyaarta ayaa waxa telefishinka caalamiga Somali Channel u suurta gashay inuu la kulmo saraakiil boolis ah iyagoo ka warbixiyay muhiimadda ay leedahay ciyaartan iyo hadafka ku aadan sugidda ammaanka ganacsatada Soomaaliyeed. Okay, I'm warrant officer Maliti of Luandle SAPS. I'm the coach of this soccer team of Luandle. And the reason for this game, we organized this game because we want to show the people of Somalia, those that are here in South Africa, that they are welcome in this country. There was a time where there was a xenophobia in this country, and so they were attacked and their shops were demolished. So that was not a good thing. So now we want to show them that things like that won't happen in the future in this country. We want to treat them, or we want to show them that they are part and parcel of this family of South Africa. waxaanu la kulnay gudoomiyaha ganacsatada xaafadda Straan isagoo inooga warbixinaya kulankan iyo waxa uu ku saabsan yahay. Bismillahir Rahmanir Rahiim. Kulankan wuxuu ku saabsan yahay isdhaxgalka bulshada aan la joogno oo martida u nahay ee South Africaanka iyo Soomaalida. Waxaan ku guuleysanay inaan wada shaqeyn sameeyno booliska kansalayaasha guddiyaasha kala duwan sidaas darteed ayaan u qabanqaabina kulankan in aan bulshada isdhaxgelino ayna tusaan inaan wax nacayb u jirin saas ay naga codsadeen inaan kulan qabanqaabino anaguna waan ka aqbalnay sidaad arkaysiina waa lagu guuleystay ciyaartii way socotaa hadda si xamaasad iyo xiiso leh ay ku socotaa ujeedada ka dambeysana noocaas waaye sida aad ogtihiin sportigu waa aaladda loo adeegsado isdhaxgalka bulshada iyo dhalinta nabadda. Cabdi Fataax Ali Samatar Sablaale, Somali Channel, South Africa.